بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درونا كسندجستيال كسو دوادا وركا ساعدا إلى 12 ظهرنimo waxaan idin waramaya anigu Cabdi Xaajiya. madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Deni ayaa hooga uu ka degan yahay magaalada Muqdisho ku qaabilay safiirka Sweden ee u fadhiya Soomaaliya Danjire Berlingad. madaxweyne Deni iyo safiirka Sweden ayaa ka wada hadlay arrimo la xiriira doorashooyinka iyo sidii waqtiga loo asteeyay doorashooyinka golaha shacabka loogu qaban lahaa gudaha Soomaaliya. safiirka Sweden ee Soomaaliya Danjire Berlingad ayaa madaxweyne Deni ugu mahadceliyay qaabilaad uu qaabilay isagoo sheegay inay diyaar u tahay dowladda Sweden sidii ay u sii kordhin lahayd taageerada ay siinayso Soomaaliya iyo mashaariicda ay ka fulinayso qaybo ka mid ah deegaanada maamulka Puntland. madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Deni ayaa intii uu ku sugnaa magaalada caasimadda Muqdisho waxa uu kulamo kala duwan la qaatay wakiilada beesha caalamka ee taageerada siiya Soomaaliya. diyaaradaha dagaalka Kenya ayaa duqeeyay deegaano ka tirsan gobolada Gedo iyo Jubbooyinka isla markaana burburiyay xarumo shirkado isgaarsiin ay ku lahaayeen deegaanada Jubbooyinka. Cornel Aadan Rufle oo ka mid ah saraakiisha ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya ee gobolka Gedo ku sugan ayaa ka hadlay duqeynta iyo goobaha ay ka dhaceen waxa uuna sheegay in dhowr goobood ay duqeynta ka dhacday. ugu dambeyntiina laba shaqaale oo ka shaqeynayay markab shidaal oo maamuso shirkad uu leeyahay ganacsada caan ah oo Israa'iili ah ayaa lagu dilay xeebaha Cumaan iyadoo saraakiisha shirkadda markabka maamusha ee fadhigeedu yahay London iyo militariga Mareykanka ay maanta sheegeen in weerarka uu muuqday mid ay fulisay diyaarad aan duuliye lahayn. Israa'iil ayaa ku eedeysay xukuumadda Tehran inay rabshado ka abuureyso gacanka Jamhuuriyadda Islaamiga ma aha dhibaatada Israa'iil oo kaliya laakiin waa dhibaatada dunida habdhaqankeedu waxa uu halis ku yahay xorriyadda isku gudubka maraakiibta iyo badeecadaha adduunka ayuu hadalkiisa raaciyay. wasiirka arrimaha dibadda ee Israa'iil Yair Lapid ayaa sheegay inuu amray diblomaasiyiinta dalkaasi inay ku cadaadiyaan qaramada midoobay iyo inay qaado talaabo ka dhan ah Iiraan oo ku saabsan weerarka halista ah oo ay ku qaaday markab uu leeyahay nin bilyaneer Israa'iili ah. warkii saacada 12 duhurnimo waa naginta dhageystayaal.